dilay adigu ma ku farxsantahay sidii uu dhintay Axmed Dawlad ka waran xaaladan hadda iyadoo taagan hadii ay dhacdo in wiilkii gabadhii wadamo kale loo qaado maxay is leedahay way dhici kartaa iyada oo Ruqiya iyo Maxamed Cabdiraxmaan arintooda meel rasmi ah lagu salayn ma aaminsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre inay waxa weeye inta diyaarad saaran ama hay'ad saarayso ay jirto ma cabsado codkaygan shacbiga ugu cadgooyay curyaamada aniga u hadla aan cid u nooleyn carabkii masaakiintaanihiyo culummo duubweyn cadligan kor yeelaa sidii caalim iyo sheekh waa yeel caruur iyo haween yaan ku caawimay aroosna lagama hadli karo wiilkaygu la gubay oo waxa weeye midab kala sooc lagu dilay oo wixii ka dhici jiray waxa weeye Soweto South Africa iyo waxa weeye Black Americanka ku kala dhici jiray slave trade-ki ka dhici jiray inay maanta ka dhacaan ninkii ugu dambeeyay oo gabar British guursada wuxuu ahaa nin Soomaali ah anu waxaan ahay nin muslina markaan muslimka si ay waliba nin qaadiriyaan ka si ah qaadiriyadu wax dhaada ma taqaanaa فرسي فاتورة لباعي ملك لغو فسحين إنك ما فكذا اللهم صل الذي لولاه ما كان أهلا الله آذنو ابن آذنو ما كنت بدواق قرآن أديكو أمباسدور أولياء إن سيدو كلا لغا هذا الحاجة فيسبوك iyo social media way dad badani markaas kugu dhaganayeen marka dhacdadan ama kiiska dad badan ka hadlay oo adigoo kala ah marka si gaar adiga maxay dadka kugu dhagan yihiin oo lagu hadal hayaa baad isleedahay social media intuu si jirin BBC-da iyo telefishinada in iyaga wax laga sheego si loo maqlo oo loo barto aniga qofka wax iga sheega waxaan u arkaa free advertisement inuu ii sameeyo xayeysiin aan lacag ku bixin voice of the voiceless kan ah anigu 10 sano ka hor markii 4.5 ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ra'iisul wasaare ah Maxamed Cabdiraxmaan iyo walaashii Ruqiya midna ma joogin waa baaqdad weyn oo waa badbaadadeena 4.5 bulshada hayeelina dawladii bilaaba waxa bilada ugu barakada la weydaa waa 0.5 ka bulshada hayeelina tiin la beeriya baxdi weeye nabaro aan abad bogsoonayn bulshada hayeelina boqolow gudiyada bilic waa ka sibayeenina isagoo bara boqorkay ma uumina baxrish Qoyski dadka diinta bari jiray ba hoos kala noo dhigay balse qaawadiin daya ma barba ma buuxan mise waaba birimo dadku bacda dheer yahay SYL kuwii bilay baxda qaasin hilowliyo Axmed Naaji baaqi barfaxsoor dal xoo kale ma barba ma buuxa mise waaba birimo dadku bacda le waxaan leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre inay guddi u saaraan oo reerka la isku keeno oo fidnadu intay hurdo laga waxa weeye laga hortago oo marka ugu horeyso horta waxa weeye in waxa weeye wixii dhacay laga bogsoodo halka adiga hadda sidoo kula muuqda adiga soo koobay aroos qaran waxa ka horeeya islaax qaran in islaax la sameeyo oo labada qoys la isku keeno in hooyada laga soo sidaayo xabsiga in waxa weeye reerkii kale la isku raadiyo reerkii la fariisto reerka wax hadii la rabo wax nadiifa walaalkay Maxamed Cabdiraxmaan he has to pay heavy price waatay daawadayaal meel walba aad joogtaan waa waraysi kooban oo magaalada Muqdisho idinkaga imaanaya isla markaasina telefishinka Soomaali Cable aad ka daawanaysaan ambassador Maxamed Xuseen OWLIYO ayaan waraysigan kooban su'aalo dhowr ah ku weydiin doonaa oo markaas maalmahanba xagga baraha bulshada amaba Facebook oo ay Soomaalida si aad ugu isticmaasho looga hadalhay marka hore ku soo dhaw telefishinka Soomaali Cable ambassador marka xigta dabcan maalmahan kiiskii ama dhacdadii markaasi arrimaha guurka iyo heebsooca la xiriirtay social media ama baraha bulshada ama Facebook ba si aad looga hadalhay sidoo kale waxa jirta adigoo ambassador OWLIYO in sidoo kale laga hadalhayay Facebook iyo social media way dad badani markaas kugu dhaganayeen marka dhacdadan ama kiiskan dad badan ka hadlay oo adigoo kala ah marka si gaar adiga maxay dadka kugu dhagan yihiin oo lagu hadalhayaa baad isleedahay mise waxa jirta hadal xanaf leh oo aad isleedahay waa gasho maya marka hore Ilaahay baa mahadle marka xigana waxaan u mahad celinayaa telefishinka Soomaali Cable iyo dabcan madaxiisa Xasan Cadde oo aan isla soo qariibnay iyo adiga iyo dhammaan shaqaalaha haddaan u soo noqdo walaal su'aashaadii inagu fiiri rag baa waxay ku bixin jireen social media intuu si jirin BBC-da iyo telefishinada in iyaga wax laga sheego si loo maqlo oo loo barto
aniga qofka wax iga sheega waxaan u arkaa free advertisement inuu ii samaynayo xayeysiin aan lacag ku bixin ayuu ii samaynaya waxaba yaraatee waqtigayga ka horna ma dhimanayo laa yastaakhiruna saacatan walaa yastaqdimuun waayo anigu waxaan ahay nin muslina markaan muslimka si ay waliba nin qaadiriyaan ka sii ahay qaadiriyadu wax dhahda ma taqaanaa farasiya fatuura la baaciyay malag lagu fasaxay nina kama fakado allaahuma salli ladi lowlaahuma kaana alan alla aadanow ibna aadanow ma ku dhibi dhawaaqa inagu waxaan aaminsanahay si kasta oo haddii shub lagaa dul dhiso inaadan waqtigaaga dhaafin marka waxaas social media waa nimanka politically failure-ka iyo kuwa qaaqlayaasha ee qadadoonka ee raba dowladda inay baad ku qabsadaan oo u soo dhex maraan walaasheen iyo walaalkeen dadka waxa weeye maanta iyagu yani guurkoodii xoogaa ayaan darada ku dhacday oo waxa weeye adeerkood ku dhintay oo iyaga khalkhalka uu galay calafkoodii dadka uu wareerku galay intay wax la qaybsan lahaayeen ayaa waxay rabaan inay dowladda u soo dhex maraan awliyana wuxuu protect gareeyaa mar walbana u taagan yahay qarannimada Soomaaliyeed marka waxay isleeyihiin yani maaragtay waxay rabaan igu soo daba gambadaan walaashay iyo walaalkay laakiin baroorta orgiga ka weyn ana waa fahamsanahay iyaguna dabcan waa fahamsan yihiin waxa la sheegayaana inay sheegayaan in kale walla iga tahay inaanan kala ogeyn pressure it is my pleasure waxay gelinaysaa pressure ka leysana waxay it's my pleasure marka haddaan xabada fadhi ku ridi jiray difaaca dawladda istaag baan hadda ku ridaya ma gartay laakiin dadka kugu dhagan waxa kamid ah gabadha reer abtigood oo markaasi ku arka in arooskii waxa aad u olaanayso iyo taa ma jirta miyaa walaalaha sababta aan ku soo galay laba ahayd arintan kow in aan ka hortago haybsooca يعني قرص دلكي ولكن لو دلي إن أن يعني سومالي waxa la yiraahdaa may iyo maxaatiri baa la yiri walaalaha reef gooye ama maxamed kubahda maxamed cabdiraxmaan oo aan ogahay waxa xalana ka socda oo la isku dayayo in Soomaalida kala laga horkeeno in muddo aad aragteen iyadoon maxamed iyo ruqiyo aysan taagnayn dhibaatadoodu aad afgooyo meel walba ku arkayseen iyadoo ciidan inta la abaabulay kuwa xalana jooga ay hubeeyeen la rabo Soomaalida in laga jaro la iska horkeeno aniguna aan ogahay qiimahooda oo waxa weeye saqaawdiin oo SYL fikirkeedii ninkii asagu ka dambeeyay ah iyo Sheekh Ways ay ka dhasheen iyo Professor Dalxe iyo waxa weeye Qaasini Lowle ay ka dhasheen oo aan waxa weeye we can afford inaan maaragta maanta nala kala qaybiyo shan baan loo gooyo haddana in maaragta internal problem tan lagu sameeyo waxa weeye sidii wiilka loo dilay qof kasto islaama hatta kuwa hooyadu dhashay oo la dhashay gabadhayda Ruqiyo ayaa aaminsan oo ka tacsiinaya sidii loo dilay inay qalad ahayd number 1 horta inaan tusino walaalaheen inay tahay inaan yani ciqaab wadareed uusan ugu dhicin oo min jahati Ilaahi ah inaanu umadeeda aan ka badbaadayelno aniga iyo adiga iyo internet dhageysanaysa xaq darro markii lagu sameeyo 1974kii markii culimada la toogtay hadii Soomaalidu ku cilahayd ciqaabka maanta ku dhacay tihiya taahan kuma dhaceen hadii maalintaas waxa weeye laba diyaaradood baa isku dhacday dugsi quraan bay ku soo dhacday 1974 marka waxa weeye hadii aan maanta ciqaabtan ka aamusno waxaan ugu dhici lahaa ciqaab wadareed tan kale waxaan ugu imid ayaan darrada ugu weyn waxay tahay ayaga inaan u hiiliyo sidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yiri unsurqa ka dhaliman oo madluuma walaalka gari gardaraba ugu hiili la yiri yaa rasuulullaahi markii laga gardaran yahay la garaye marka uu gardaran yahay see lagu ilaa xaq ku qabo walaalaheen waxaan u tusinayay waxaanu dhacdo maamada ka timid inay tahay iyo caadifad xageeda laakiin aan qabiilka ay ka dhalatay maamadu aysan wax shaqo ku lahayn inaan walaalaha soo hadlaya aysan wax shaqo ku lahayn in waxa weeye aan aabihi uusan shaqo ku lahayn markaan iimaanaynana anaga waxa naloo sheegay inuu odagu siiyay gabadha waa gartay marka garb istaaga xilligaasi aad garb istaaga u muujisay waqtigaas dadkii u muujiya kamid ahayd anagu waxaanu taaganahay oo haddaba taaganahay in la wareystaa ayaa fiican aroos qaran in laga hormariyo dib u heshiisiin qaran labada qoys loo isku keeno
in agoontii laga dhintay wax loo qabto oo 12 noloshooda yatiintaas waxa weeye la quudiyo oo meel loo saaro oo qaranka iyo Soomaalida social media ka soo ordaysa inay wax siiyaan marka ka bacdi walaalka iyo walaasha isqaba marka ka bacdi inaan marka dabaqada saddexaad qodobka saddexaad in laga hadlo reerka arooska qaran in laga dhigo iyo badbaadada Maxamed iyo Muxubo in marka laga hadlo laakiin maxaa number 1 ah number 1 waxa ah haddii dib yimaado dhabaqa meel beeshay nin ragaha meesha ku dhintay wuxuu u dhintay wax aan Soomaali u dhintay aysan jirin oo waxa weeye waran mariidaysan oo sumaysan iyo dabba la isku daray batrool baa lagu shubay marka waxaan rabaa inaan yani si aan adiguna adu ogaato walaalaha kalena ay ogaadaan horta in waxa weeye laga hadlataa koow marka laga hadlo Maxamed iyo Muxubo aniga aragtidayda Maxamed aan kula hadlay Maxamed Cabdiraxmaan waxay ahayd hadaad gabadha rabto Soomaalidu markay 100 nin iska disho ayaa waxa weeye gabadha godob tira la kala qaadan jiray gabadha hadii aad rabto inaad dhaqato waa in hooyadeed la soo daaya waa in reerkii islaax lagu sameeyaa waa in hadda wixii dhacay waa dhaceen ha dhicin maxay u dhaceen ileen wayba dhacday dhacdada xaladheey ka noqo dhayay qalbiyada dhayay in aanu ka haba yaraatay Maxamed iyo dadkiisa dhinacooda in agoonta waxdan ugu jirtay inta diyaar la qaato dawladdu u istaagto qaranku u istaago inay dadka waxa weeye adeer Muxtaar oo ka dhintay wiilkii la dilay aabaha oo yiri asaga quudin jiray ya hadii inta maanta la soo qabtay la toogto maamada wax macnaa u sameynaysa mala laakiin hadii intay aqligu shaqeeyo oo la heshiisiyo oo reerka loo tago islaaxu bayna naas laga dhex sameeyo agoonta waxbay u taraysaa tan labaad walaalaha soo hadlaya oo aniga eedeynaya anigu ayaga la jirsaday anigu ayaga ayaan waxa weeye aniga iyo adigu ayagu isku qoontaanahay Soomaalidu waa ma iyo maxaa tiri anigu waxaan ahay dadka ayaga lagu tirinayo bahashani waxaan leeyahay war waxaanu qabiil ma aha ama maamada qabiilkeeda noqoto ama aabaha qabiilkiisa noqoto waxa weeye waa wax dhacday oo waliba waxa weeye wax la yiraahdo Soomaalidu wad ari iyo war dumar midna lama sii wadwado qof dumar wuxuu ka dambeeyay aabihiina haybad uu gabadha u dhiibay markii hore sidii loogu sheegay ayaanu ku soo galnay haddana waxaanu taaganahay walaalaha intay dhiilaayeen ka yaraa keeska si dhacday keeskaas waxay un bay isku sii adkeynayaan qaaqlayaasha kule anaga reer hebel inta walaalka Maxamed Cabdiraxmaan magac u yeela oo la wiilkaas inta magacaan anagu afkay karin u yeelaya waxay tusinayaan koow horta qabiilkii maamada ay ka dhalatay waxay u sameynayaan qolaad waxay u sameynayaan xadaarad xumo waxay u sameynayaan diin xumo in akramakum indallahi atqaakum bay burburinayaan inamal mu'minuuna ikhwa burburinayaan waxay burburinayaan aayadaadkii iyo diintii islaamka samaawiga ahayd oo 1440 sano jirtay Nabi Maxamed Jibriil ku soo dejiyay ay horta meelka dhacay ku sameynayaan marka waxa la rabaa in ay walaaluhu yimaadaan oo gabadha iyo hooyada ay wiilkan waxa weeye la heshiyaan ninkii dhintay ay la yimaadaan islaax u yimaadaan dawladda baaq fiican u soo diraan annagana faraan wax fiican oo dawladda u sheegno oo aanu dadka aan ku dhaxayso laakiin inay waxa weeye waxaas waxay noqonaysaa doqonnimo un bay noqonaysaa ambassador awliyo dabcan shalay dadkii waxa kamid ahayd markaasi garb istaaga u muujiyay maanta dabcan hadan waad la socotaa oo wiilkii gabadha aabaheed uu soo hadlay wuxuu leeyahay gabadhii aniga ma aanan bixinin sidoo kale inta gabadha hooyadeed marka qoyskii oo hadda dhahayaan anaga aabihii ma aanan bixinin gabadha adeeryaasheed baa bixiyay